Kani waa Maxamed Amiin, magaca macaan quruxda badan balse afgarashadiisu yahay Abdiilow. Maxaa kugu soo dhici karo afgarashada magacaasi? Waa dulmi fale, waa dulli, waa dhiigtaadiye, waa kufsiga maleego, shacabka ka ilmeysiiyo, cabsi geliyo cadowga Soomaaliyeed. Hadba waxaad ku tiraahdaba waa uu magacyo badan yahay, balse waayihii dambe ayaa wuxuu noqday mid astaan gooni ah yeesho, asagoo turku jir ah, mar walibana kufsado, dilo, afduubto, isagoo oo ku doonayo inuu lacag ku helo qofka uu afduubto ama uu kufsado. Sidoo kale kuwa aan iimaanka lahayn ayaa waxay u isticmaalaan ummadda haddii ay isyara gafaan in ay ninkaasi wacayaan. Ha ahaatee waayahan dambe waxaa aad loo kookoobayay ama loo baadigoobayay waa aragtidiisa oo qudha. Shacabkana waxay mar waliba daneynayeen inay ninkani ee lagu sheegay afgarashadiisuna yahay Abdiilow in mar ay indhaha ka qaadaan. Si walbay ahaataba, dhiig haddaad daadiso nabad kuma taqalo. Ninkani waxaa in badan raadinaysay dowladda Kenya, balse Ilaahay ma qorin inay gacanta kusoo dhigto. Warar aan ku kalsoonaan karno ayaa waxa ay naga soo gaareen caasimadda ku-meel gaarka ee Kismaayo in lagu hayo, dowladdana ay gacanta ku dhigtay. Shacabka waxa ay aad iyo aad u mushaaradayaan, u istaagan yihiin, gurbaankana u tumayaan in gacanta lagu soo dhigay. Magac wanaagsana waalidkii magac qurux badan u dooqeene Maxamed Amiin baa la yiri. Haftuu yiri iyo dilaagii qarsoonaa ee aabihii dilay, kuna faani jiray in uu waalidka dilay. Dulliga dameerka daanyeerka waa sidee ay bulshada ku soo hadal qaadayaan oo ay baraha bulshada mid waliba uu ku sheegayo una soo qorayo. Gefbadanaha gaalka qaarkii ay dhahayaan dulliga uu geystay iyo dooni mayno in loo xukumo tiirka hala geeyo. Waa sida ay ku qaadayaan shacabka. Waxaa xalay iyo habeen horeba laga dareemayaa in ay hurdadii ladeen qaar ka mid ah bulshada ku nool xeryaha, isagoo oo halkudhigkiisa ama saldhiggiisa ugu weyn u ahaa waddooyinka u dhexeeya Libooyo ilaa iyo Doobley. Looma kala harin, quraan akhris badan iyo inkaar fara badan loo tuuray. Ninkani waxa uu maanta soo galay gacanta dowladda. Bulshadu dal iyo dibadba intii joogto waxa ay codsanayaan in tiirka la geeyo lana qaarajiyo. Halka aad inaga dhehanaysaan waa codka Muqdisho. Kommentiga inagula wadaag wixii laga yeeli lahaa iyo dareenkaaga. Aad baad u mahadsan tahay. Siina share garee, la wadaag asxaabtaada. Laagtana noo saar, waa inoo dhiirigelin. Haddii aad hore inooga mid ahayd asxaabta nagu xiran, waxaynu kaa codsanaynaa inaad asxaabtaada kala gaarsiiso si uu asxaab badan u gaarana. Like share-ka nagu dadaal. Aad baad u mahadsantihiin. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.